waxaanu ka xukuumad ahaan si bilgeeya maamuus loo soo dhaweynaynaa safiirka dowladda Israa'iil ay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo magacowday Ambassador Mikhail Lohtem waxaanu ku soo dhaweynaynaa qalbi furan waxaanu ku soo dhaweynaynaa dal madax banaanidiisu 35 jirsaday waxaanu ku soo dhaweynaynaa shacab adkaysi iyo ayakatashi weyn aqoonsigooda muddada dheer u sameeyay waxaanu ku soo dhaweynaynaa xiriir wanaagsan waxaanu ku soo dhaweynaynaa wada shaqayn waxaanu ku soo dhaweynaynaa iskaashi dhinacyo fara badan leh intaa markaan ka yimaado maanta waa maalin weyn waa maalin mar labaad ay rumowday hididiiladii iyo rajadii shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ka tashigoodii muddada dheer adkaysiga u yeeshay ilaahayna aqoonsi caalamiya uu keenay waa guul labaad oo ku suntan qulubta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland tani waa taariikh ay leeyihiin kuwii xabaalaha u galay jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwii xinjirahooda u qubay jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland tani waa taariikh ay leeyihiin golayaasha qaranka tani waa taariikh uu ku suntan yahay madaxweynaha qaranka madaxweynaha ictiraafka madaxweynaha dunida jiritaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland baray tani waa taariikh ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliland ee qurbaha iyo gudahaba jooga tani waa taariikh ay leeyihiin hooyada cadceedda caanaha ku iibisa iyo askariga jiidaha hore jooga tani waa taariikh ay leeyihiin kuwa cisbitaalada ku jira iyo kuwa xafiisyada jooga tani waa taariikh ku suntan mar labaad qulubta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland tani waa taariikh ayna waxba ka bedeli karaynin xasan sheekh iyo xayntiisa xamar joogta ee madaxweynadoodii dhamaaday tani waa taariikh maanta ay ku dabaaldegayaan saxaafadda Soomaaliland ee halganka adag ugu jirta difaaca dalkooda iyo dadkooda aqoonsiga Soomaaliland xasan iyo xirtiisa xamar joogta shalay talo waxa lahayd fiido waa lagu duubay markii ictiraafku yimid xalayna waxa daawanayseen iyagoo catow iyo cabasho wado dowladaha dunida ee soo socda iyo dalka Israa'iil ba ka codsanaya in laga noqdo se waxay moogan yihiin in maalmaha soo socda ay arki doonaan dalal boqolaal gaaraya oo ka marakici doona jiritaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xasiloonidiisa qarannimadiisa ay ka tashigiisa iyo aqoonsigiisa insha Allah biidni Ilaahi baari tallaabadani waa tusbax furmay iyo tareen dhaqaaqay xasan iyo tiimkiisu tawaawuc waxba kaga bedeli karayaan shacabka Soomaaliland xukuumadooda golayaashooda ciidankooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada saxaafaddu hormood ka tahay waxay turuq tamar iyo taag hayaanba waxay ku ilaashay mar saddexaad waa albaab weyn oo u furmay mustaqbalka jiilka
hadda jooga iyo kuwa talada dalkan iyo dadkan yeelan doona. waa rajo iyo ididiilo abuurmatay, waa guul ku beegantay 35 sano iyadoo maalimo dhow aynu u dabaaldegi doono ictiraafkii Somaliland inagu dabaaldegi doonaa 18 May in safiiro dalkeena jooga oo ina aqoonsaday iyo safiiro kale oo caalamiya iyo wufuud waaweyn ay ka soo qayb gali doonaan. taariikhaha qormaya waxay ku yimaadeen fadliga Ilaahay, waxay ku yimaadeen talada iyo tusmada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo ah madaxweynihii ictiraafka, madaxweynihii ciidanka, madaxweynihii nabadda, madaxweynihii horumarka. waxay ku yimaadeen tacabkii ay soo geliyeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay. waxay ku yimaadeen golayaasha qaranka dadaalkooda. intaa markaan ka yimaado shacabka Somaliland waxa la gudboon ku qurba jooga iyo ku guda joogaba buugaagtii la akhrin jiray bayjajkoodii inay laabaan, bulshadu mid ay noqoto, loo midoobo ilaasashada dowladnimada, loo midoobo u diyaargarowga weynaynta maalinta 18 May, loo midoobo micnaha qarannimada, mid laga noqdo muujinta quwaddeena, mid laga noqdo feejignaanta cadowga, mid laga noqdo soo jiidashada indhaha caalamka, mid laga noqdo iibinta waxaynu haysano khayraad leh ee bado, beero iyo buurabay noogu jira, mid laga noqdo walaalnimadeena, mid laga noqdo ka fogaanshaha waxayna kala qaybinaya. intaa waxaan raacinayaa xukuumad ahaan iclaaminaynaa mar labaad caasimadda jamhuuriyadda Somaliland waa xudunta iyo halbowlaha dalka. golaha deegaanka ee Hargeysa, mudanayaasha golaha deegaanka iyo shacabka iyo qaybaha kala duwanba xukuumaddu qayb kama aha, madaxweynuhuna qayb kama aha loolanka golaha deegaanka Hargeysa ka jira. madaxweynuhu waa oday qaran, madaxweynuhu gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ma aha, bara saabka gobolka ee hogaaminaya doorashada golaha deegaankana ma aha. waa astaantii qaranka. beri ayuu ka yahay, dhexna wuxuu yahay mudanayaasha golaha deegaanka. xukuumadduna dhex bay ka tahay. cid madaxweynaha ka wakiila oo afkiisa ku hadli karaysa oo bulshada soo hor istaagi karaysa ama nin golo deegaan ku jira ha noqdo ama nin bannaan jooga ha noqdo ma jirto, mana jiri doonto. madaxda dhaqanku kaalin bay dalka ku leeyihiin. kaalintay ku leeyihiin waa islaaxinta arrimaha bulshada, nabadgelyadooda, midnimadooda, iskuwadkooda iyo xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta nabadgelyada. wax intaa dhaafsan annagoo u xurmo wahayna ka xukuumad ahaan madax dhaqameedku magaalo kaste iyo meel kaste ama miyiga ha joogaan inay ku dhowrsadaan kaalintooda dhaqan. nin cumaamad wata oo odaya oo madax dhaqameedi xukuumaddana wakiil kama aha, madaxweynahana wakiil kama aha. qolada golaha deegaanka xildhibaanada xukuumaddu waxa u haysaa ixtiraam. mudanayaasha golaha deegaanka xukuumaddu waxa u haysaa ixtiraam. xukuumaddu waxay idiin soo jeedinaysaa shacabka mar baad soo hor istaagteen, xaqii shacabku idinku lahaayeen way idinka sugayaan, xuquuqda idinku lahaayeen way idinka sugayaan. idinkuna xuquuqdii dastuuriga ahay muwaadin ahaan aad ku lahaydeen milicday maalin dheer idiin taagnaayeen, cod bay idin siiyeen. war qofka
hanle ee doonaya golaha deegaanka inuu hogaamiyo oo kursiga hanto isagoo karaamada dalka ilaalinaya tiisa ilaalinaya karaamada dadka bacadka u taagnaa ilaalinaya waxba yaanu dhufayska hoteelada soo gelin waxba yaanu madax dhaqameedka ka hadlin kursigu waxa lagu hantaa kalsooni qofeed iyo karti meeshana ma taalo kursiga hanashadiisu makhaayadaha waxay dhex taallaa xubnaha golaha deegaanka caasimadda kuwaa xodxodo xilka iyaga ayaa cod kugu siin karaya shacabku meel buu u socdaa dalku meel buu u socdaa dibindaabiyooyinkoodaynu arkaynaa caasimaddu ma qaadi karayso kala qaybin ma qaadi karayso cunfi ma qaadi karayso maalin kastee reero soo istaaga saxaafadda xisbiyada iyo hanaanka dimuqraadiyadda waxaynu u samaysanay in lagaga koro habka qabiliga oo loo koro hab qarannimo duqa caasimaddu micnihiisu waxa weeye waa odaygii magaalada ninka doonaya inuu duqa caasimadda noqdo uu odaygii magaalada noqdo degmooyinka magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay ayuu duq u yahay oday u yahay haybad huwan yahay mid ka sokayso huwan habka madaxweynuhu u shaqeynaya tullaagin uu shaqeeyo loo baahan xukuumad ahaan maanta laga bilaabo waxaanu faraynaa inay ku eekaadaan guulahooda deegaan sawirka iyo sawaxanka suuqyada laga wadaa maaha waqtigeedii lahayd tii commissionka qabtay tan super iyo xeerka uu sheegayo golihiinaad ku kala baxaysaan dalkan meel buu socdaa dunidiibaa lakab noogu imanaysaa dibindaabiyooyin ilaahay baa keenay ina tartaa abaal baynu haynaa cid kaste oo hagardaabay nagu wadaa ogaalkay waxaanu ku guuleysanaynaa midnimo wadajir iyo horumar waxaana kow ka ah inaynu cid kastaba iska dhicinno xuduuddeennu muuqato calankeennu caalamka uu gaadhaya waynanu mid ahaanaa si sharaf milgo iyo maamuus leh waxaan ugu mahadnaqayaa saxaafadda dowladda iyo saxaafadda madaxa bannaan oo aan habeen ka seexan inay ku dagaalamaan qoraalkooda iyo qowlkoodaba qarankana ku quweeyaan وصلى الله على نبينا محمد